subscribe, like, share, comment. Gambalalka dhaysi. muuqaaladan hortiina ka muuqda waa ardadii Soomaaliyeed ee maanta ka qayb gashay seminaarkii ee ku saabsanaa personality development oo macallimiinta iyo maamulka Somteach ay u ballan qaadeen ardada Soomaaliyeed. waa ku dhawaad 40 arday oo nasiib u yeelatay inay ka qayb qaataan seminaarkan. sidaad arkaysaanna waa ardadii oo casharadoodii daraasaadkoodii si wanaagsan u dhageysanaya. waxaan filayaa in seminaarkan ay ardadani ka kororsadeen cilmi weyn. waxaan rajaynaynaa haddii aan nahay maamulka iyo macallimiinta Somteach inaan sii wadi doono garab istaagga caawinta ardadeena Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. haddii aan ku gaari lahayn si offline ah iyo haddii aan ku gaari lahayn si online ah, labadaba Somteach mar walba waxay u taagan tahay caawinta ardada Soomaaliyeed. hadafkeenana waa in ardada Soomaaliyeed ay gaaraan isku filnaansho innaga oo mar walba kala talinayno waxbarashada iyo stebiska ama tallaabooyinka ku aadan dhisidda ama horumarinta noloshooda. waxaan garab taaganahay mar walba ardadeena ilaa iyo inta ay cagahooda kaga istaagayaan. waxaan ognahay dalkeena markii aan ka hadalno waxbarashada dabcan heerar kala duwan ayay soo martay. waxaana isku taxluujiyay macallimiin ayaa dhabarka u dhigtay in ardada Soomaaliyeed ay inta awoodooda ah caawiyaan, iyadoo aan ognahay inuu jiro ama jirayba burbur iyo wax walba oo dalka u lahaa kaabayaashii waxbarashada wax walba inay burbureen. haddana dad Soomaaliyeed ayaa garabka u dhigtay in ay qaadaan culeysyada kala duwan ee ka imaanaya waxbarashada ayna dadkooda kaga tegin meel cidla ah. Somteachna waxay ka mid tahay macallimiintaas iyo dadkaas Soomaaliyeed ee u taagan u hiilinta ardadooda. waxaan mar walba garabkiina aan taaganahay inaan wixii talo iyo tusaale aan idin siino inta awooddaanada ah wixii aan idin dhaanno. waxaan ardada Soomaaliyeed meel kastoo joogaan kula talinaynaa inay raadsadaan waxbarashada meel kasta oo ayba awood u leeyihiin inay ka raadsadaan. waxaan ku waaninaynaa kula talinaynaa in ay iska dhaafaan waxyaabaha maalayacniga ah oo waqtiga ka luminaya, inay ku ekaadaan cibaadadooda. haddii ay shaqo hayaan shaqadooda, haddii ay waxbarasho hayaanna waxbarashadooda. waqtigu waa fursad aan caadi ahayn inaba, oo haddii adiga aada dayacdid aada mas-uuliyaddeeda qaadaysid. mas-uuliyaddaas oo noqonayso haddii waqtiga aada dayacdid cawaaqib xum iyo in adiga aada noqotid qof dunidan aana waxba kusoo kordhin. waxaa la rabaa inaad ka fikirtid maxaad u joogtaa maanta dunidan, maxaad kaga tegaysaa, maxaad reebaysaa, raad noocee ayaad reebaysaa, maxaad saameyn ku yeelanaysaa dadkaaga, maxaa laga qorayaa, maxaa laga reebayaa, maxaa caawinaad ah oo aad dadkaaga u geysan kartaa, maxaad soo kororsan kartaa. mustaqbalka xaggeed u socotaa, xaggee ayaad u jihaysan tahay, maxaad doonaysaa inaad noqotid. waxaa la rabaa qof kasta oo Soomaali ah oo arday Soomaaliyeed ee wax baranaya in maankiisa uu ku hayo horumarinta naftiisa. haddii aadan naftaada horumarinna
waa adiga oo ku dambeeya markaasi meel mugdi ah. inta aad awood leedahay ka faa'iidayso socodka iyo juhdigaba geli sidii aad maalin kasta ugu yaraan erey ama wax kugu cusub aad kusoo kororsan lahayd. dabcan waxbarashada haddii aan waxbaranno waxaan heli doonaa fursado badan ayaan heli doonaa. marka waxaan idinkula talinayaa in mar walba aad isku daydaan cilmi inaad raadisaan oo aadan ka xishoon raadinta cilmiga wax kastoo ay noqotaba iyo duruuf kastoo aad ku jirtidba inaadan ka daalin inaad raadisid koorsooyin inaad ka qayb gashid seminaaro waayo seminaarada waxay dhisayaan CV-gaaga ay dhisayaan. waxaan kugula talinayaa inaad sidaa yeeshid oo aad waxbarashada raadisid. muuqaalkan aad arkaysaan dabcan waa seminaarkii maanta ay ardada ka qayb galeen oo Somteach ay usoo bandhigtay seminaarka. casharkii halkaas laga bixinayay dabcan waxaan dareemayaa in aanan wada duubin codkii sharaxaadii balse waxaan diyaar u nahay in haddii ay noqon lahayd online iyo haddii kaleba aan sii wadno seminaaradan waxaana socon doona insha allah mar kasta traininada waxaan u gudbi doonaa inaan noqono training center xarun tababar waxaana furi doonaa biidn illaah xarun weyn oo ardada Soomaaliyeed lagu tababaro ayada oo la eegaya jeebkooda iyo awoodooda iyo mar kasta duruufta ay ku soo yihiin ayadoo la eegaya waxaan jecelnahay inaan furno xaruntaas oo xarunta tababarada seminaarada kala duwan dadka Soomaaliyeed loogu qaban doono. waxay tani marag ka tahay ballanqaadyadii Somteach ay ballan qaaday seminaarkii ay ballan qaaday. waxaad arkaysaa ardada Soomaaliyeed oo shahaadooyinkoodii qaadanaya waxaad arkaysaa ardada Soomaaliyeed oo u mahad celinaya Somteach iyo wixii ay soo qabatay. waxaan filayaa inaad ka mid noqon doontid bahda Somteach waxaana mar walba raadin doonaa dhan kasta oo waxbarasho ee dadkeena ay jecel yihiin. waxaan xoogga saari doonaa in wax naftaada horumar ku keenaya aan mar walba raadino skills ama xirfado muhiim ku ah inaan raadino. wixii talo iyo tusaale ah ha nagala xishoon. muuqaal kasta oo Somteach aad ka aragtidna sii faafi. waxaad tahay wakiilka Somteach waxaad tahay saaxiibka dhow ee Somteach ay leedahay. waxaad tahay qofka keliya ee aan maanta isku hadlaynayno. waxaad tahay garabkeenna waxaad tahay ardaygeena waxaad tahay saaxiibkeenna. marka isku day in aad caawiso ardada Soomaaliyeed oo muuqaalkan aad gaarsiisid share garaysid bartaada Facebook ah like aad saartid commentiyada aad soo qortaanna waxaan ka qaadanaynaa maaragtay macluumaadkaasna waxaan dib ugu celin doonaa ardada Soomaaliyeed. sidaas daraadeed commentigaaga waa muhiim inaad muuqaalka like garaysid waa muhiim in aad ka talisid sidii Somteach ay u gaari lahayd dhammaan dadka Soomaaliyeed waa muhiim waana waxtar aad geysatay oo aan kaaga mahad celinayno. dhammaan inta muuqaalkan daawanayso iyo inta daawan doontaba waxaan u rajaynaynaa horumar guul barwaaqo caafimaad iyo cibaado suuban ayaan u rajaynaynaa. waxaan qof kasta ee Soomaaliyeed u rajaynaynaa inuu tallaabo hore u qaado guulaysto guul gaaro hadafkiisana xaqiijiyo meel alla meesha uu qofka jecel yahayna
uu gaaro. waxaan idin leenahay horumar wacan, waxaan idin leenahay nala jir, waan kula jiraynaa, na garab istaag, waan ku garab istaagaynaa. waxaan nahay ul iyo diirkeed haddii aan nahay maamulka iyo macallimiinta iyo ardada Soomaaliyeed ee nagu xiran muuqaaladeena daawato, muuqaaladeena like garayso, muuqaaladeena share garayso. dabcan wax ka wanaagsan oo aad share gareyn lahayd ma jiro in aad qof walaalka ku caawisid in wax lagu kordhiyo. waxaan u taaganahay waqtigeena qaaliga inaan wax idinka siino, inaan idinla wadaagno, talooyinkiina dhageysano, wixii awoodeenada ah ee macquul ahna aan qabanno. waad ku mahadsan tahay mar kasta dhageysiga, daawashada aad daawanaysid muuqaaladeena. waad ku mahadsan tahay fariimaha aad noo soo dirtid, commentiyada aad noo qortid. waad ku mahadsan tahay like-ta aad saartid muuqaaladeena, sida aad u share garaysid iyo sida aad ugu qayb qaadatid in channelkan u noqdo channel muuqdo ee ka muuqda maaragtay dadka Soomaaliyeed dhexdiisa ka muuqdo. waxaan rajaynayaa in aad ka shaqayn doontid sidii oo guri kasta ee Soomaaliyeed uu ku gaari lahaa Somtage. horumarkaaga waa horumarkeena, horumarkaanagana waa horumarkaaga. dhammaanteen aan garab istaagno, isgarab istaagno, gacmaha isqabsanno, noqonno dad isku tiirsan. lama kala maarmo, ma jirto cid ka maaranto. waxaad tihiin saaxiibadeenna, waxaad tihiin ardadeenna, waxaad tihiin bulshada aan ku faanna ee aan jecelnahay. ardada Soomaaliyeed ee aad aragteen muuqaalkooda waxay waqtigooda usoo horeen sidii ay u faa'iideysan lahaayeen wax ku cusub noloshooda. waxaana rajaynayaa inay seminaarkan ama tababarkan ka faa'iideen, wax badan ay ka faa'iideen, una gudbin doonaan dadkooda Soomaaliyeed. haddii hal qof oo dadkaaga ka mid ah aad bedeshid noloshiisa, wax ku beertid cilmi ama waayo-aragnimo kaleba ama xigmado kaleba, waxaad horumarinaysaa nolosha dad kale. haddii hal qoys Soomaaliyeed uu gaaro, qoyskaasna wuxuu sii gaarsiinayaa qoysas badan. waxaa halkan ka muuqda gabdho Soomaaliyeed oo diyaar u ah inay horumariyaan noloshooda. haddii gabar Soomaaliyeed aa horumarisid, waxaad horumarisay qoys Soomaaliyeed. iyaga iyo wiilasha quruxda badan ee halkan fadhiya waxaan u rajaynaynaa guul, barwaaqo iyo bashbash. alxamdulilah rabbil caalamiin. waxaan u mahad celinayaa Somtage online oo aad iyo aad isugu hawshay in ay ardayda Soomaaliyeed ay dhibaatada ay ku jiraan iyo waxbarashada ay ka kaabto, iyagoo waqti adag la qaadatay, duruufo adag, dhibaatooyin ka haysto waxbarashada ay dhexda u xaalatay. khaasatan waxaan aad ugu mahad celinayaa Ustaad Ashraf iyo Ustaad Safari oo xisaabta ardayda aad ay ugu jahawareersanaayeen meel ka saaray, iyo luqadda Ingiriiska oo Ustaad Ashrafna oo hal ugu kala dhigdhigay. waxaan kaloo la iloobi doonin waqtiga adkaayay la qaateen, waanu xusi doonnaa. waxaan rajaynayaa in kuwa soo socdo form 4-rada intaan iyo in ka badan ay qayb gacan leh ka sii doonaan, annagana aan xataa kabi doonno oo aanan ninka la yiraahdo ku fiirsan doonin waxyaabaha qaarkood oo aan xalli karno, inaan inta soo xallino, kala soo shaqeyno, aan garab kala sii doonno. Somtage adoo mahadsantiin. ila tawfiiq.
بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقعي واسي محمود حسن إن كان مد أرديدا كصبرة تدكسي وصرح سر الشيخ يوسف الكونين إن سيدو كله وحن كمد أرديدا سنة كان أفدي ستي إن اتحان كشهادة جيدلك إن وحن إن سيدو كله كمد هاي أرديدا كحدنا جنال يوتيوب كا something learning online oo maanta halkan u taagana inaan halkan ugu mahad celiyo in ugu horeen waxaan u mahad celinayaa maamulkii macallimiintii isku soo howlay inay asaasaan channelkaas si ay ardayda Soomaaliyeed in baahiyahooda in ay ugu waxa baahiyaha ay qabaan ay ugu soo gudbi lahaayeen in waxaan halkan in salaan ugu dhiibayaa iyo mahad celin ustaad Ashraf waqtiga taagan dhammaan macallimiinta iyo bahda something online inuu uga gaarsiiyo in sidoo kale waxaan xusid mudan oo halkan ku bogaadinayaa maalintii aan bilaabayna fasalka 12aad in ardayda Soomaaliyeed waxay u istaagtay something online in ay la bilaabaan cashiradoodii iyo manhajkoodii in ay mid ugu soo duubaan oo aan ka faa'iideyn in badnay sidoo kale in badnaa ka faa'iideyn cashiradaas sidoo kale intaas ugu ma harinay waxaan xasuustaa maalintii aan dhameeyay in grade 2 alif am fasalka 12aad in ustaad Ashraf uu soo diyaariyay seminar qaab online oo soo duubay ama zoom-ka ku soo qabtay oo looga hadlayay sida imtixaanadaas iskugu diyaarin lahayn in aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa garabkaas aan siiyeen maanta oo aan taaganahay oo aan halkan ka hadlayna waxay noogu yeereen seminar in personal development maadaama aan dhameynay in heerka waxbarashada dugsiga sare intaas noogu maharinay waxay wali u taagan yihiin inay dhiirigeliyaan ardayda in aad ayaan ugu mahad celinayaa waana cadeynta maanta shahaadada ay siiyeen personal development halkiina kawada aad ayaan u bogaadinayaa dhammaan bahda something online allahana idin galab gal adikana dadaalka u haysiin bulshada aad ayaan u mahadsantihiin horta ma sha Allah horta waxaan aad ugu mahad celinayaa maxallaha teamka something oo naga caawiyay xilliyada imtixaankii oo nagu adkaa kulle macallinka waxa laga yaabaa oo madrasada waxa laga yaabaa in uu ka mashquul laakiin qoloyinkan something waxay naga saacideen in qaab online casharadii aan u diyaarino imtixaankiina nala diyaariyeen hadda aan iskuulkii dhameynana waxay noo soo qabteen seminar oo looga hadlayo si nolosha personal ahaantaada si u horumarileed oo ah iskuulkii waa dhamaaday jaamacada u socotaa jaamacadii iskuulka isku mid maahan oo waxa u baahan tahay isbedel oo dhanka nolosha inaad samaysid qaabka u sameyn lahayd oo seminar ay noo qabteen waan ugu mahad celinaa teamka something dhammaan maxal Ashraf ugu weeyahay waxaan leeyahay waa mahadsantiin ardayda saa u caawisan ilaahay idin garab galo waa mahadsantiin alla ku sukuun inka maskal bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdullah Maco aad ay ugu fanaansan maanta ka soo qayb galay seminarka quruxda badan ay qaybqaabiyeen something iyo tibkeeda seminarka waxa iga farxad badan inaan halkan iyaga muuqtaan ustaadihiin ka arki jiray shaashad intii badan qaar kamid ah waxaa halkan ugu mahad celinayaa macallimiinta dhammaantood oo ugu horeeyo ustaadkan hadda la taagan iyo ustaad Maxamed Nool Safaari oo halkan ka salaamayo oo maanta dhahay wajigiisa soo arag laakiin sabxumo aanan arkin salaam qaadin inay gaarsiisin ayaan rajaynaa insha Allah awalan waxaa mahad oo ballaaran u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala kaas oo ah barbaariyaha gobolkan soo dirihiisa gaarsiiyaha diinta sharafta leh ee maanta dunidu ku taagan tahay nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam awalan waxaan salaamayaa family something dhammaan macallimiinta sharafta leh sida wanaagsan oo quruxda badan ee noogu noqdeen garab iyo gaashaan iyo waqtigooda noogu horeen abaalkooda ma gudi karno Allah subhanahu wa ta'ala ha ku abaal mariyo jannatul firdaws intaas kadib waxaa u mahad celinayaa maanta xafladan aan ka soo qayb galnay dadkii ka shaqeeyay qaar Allah siiyo ayagana dhammaantood way mahadsan yihiin iyo inta ka soo qayb gashay dhammaantood waxaana cadeen oo ah in maanta shahaadadii soo qaadin anigana ka soo qayb galnay dhammaan family something gooli gobonimo أولاً السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحمد علينا إلهي سبحانه وتعالى ساكن نصر تقلينا ماشى اسكول ومعنا وبعدين وحمد علينا بها something أولاً ونصر تقلي سمينا كان ناقبته نور قدوس شهادة personal development sidoo kale waxa u mahad celinayaa macallimiinta bahda something online oo mar walba nala gar taagnaayeen inaa sidaan waxbarashadan kor ugu qaadi lahayn dhan nooguna caawiyeen dugsigeena sare markaa soo gaarnay fasalkiisa 12aad inaa aan ka wada casharada mar walba ama aan ka qaban walwalaad oo naga xaqtiray inaan casharada si fiican u fahansiiyaan dhammaan waxa u mahad celinayaa bahda something online qaasatan ustaad Ashraf iyo ustaad Safaari waxaan leeyahay mahadsanid kun jeer waa mahadsantiin sida nala gar taagnaydeen hiilka iyo hooga
waxaan leeyahay sida noola garab taagan Allah subxaanahu wa tacaala ha laga garab taagnaado mahadsanid baa Somtage Online. Warayna assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaan inta mahadcelin waa masalaan ugu dirayaa dhammaan macallimiinta Somtage Online run ahaantii aad iyo aad u mahadsan yihiin waxayna siin garab aad iyo aad u weyn qaasatan waxaan meeshan ka salaamayaa macallinkeyga Safaari Maxamed Nuur rahantii waa macallin aad iyo aad nala soo dadaalay macallimiinta kalena kama dhicin runtii aad iyo aad ay nala soo dadaaleen waxaan aad iyo aad waydinku mahadcelinayaa midaasi waxayna tahay sharaf aad iyo aad u weyn inaan mahadcelin meeshan idinka soo jeediyo rahantii waxayna qabteen seminar rahantii aad iyo aad ay u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay قول الله يدين جرسيو مشان ملك في على الله يدين جرسيو استعداد من السوداء كله وحنقول جينا يا قول وعن Soomaaliya waxa idin sheega segsegni ma la iska dhaafo Somtage waa cilmi la soo duuduubiya daya idin sheegi waa lagu soo shubay